taleefona laga wacaa hawshu kala tuuraa wuxuu qaban jiray marka gabdhuhu uurka ay qaadaan ayuu caruurta ka soo ridi jiray habeenkii galabtii 11 saac ilaa habeenkii 3 saac shaqadaas uu qaban jiray gabadha marka caruurta laga soo rido qolo jiifato siina 2 days 3 days lacagta ku siyaadayso 3 maalin noqoto 2 maalin noqoto horaan ka baxa ha noqoto waa caruurtu ka soo xaaqa kadibna meeshaas oo maartay haan weyn oo soo dhigto caruurtii dhiski gura in ka badan 100kiis ayuu xaliyay sida uu qirtay mucjisada ku dhacdo adin sheegi doonaaye 100kiis ayuu qirtay wuxuu dhahay inta aan ku gudu jiray soo riditaanka caruurta yaryar waxa igu yaabanayd in gabari ay tiri caruurtan aaba ma lahan iga soo xaaq markii aan ka soo xaaqay ee caruurtii banaanka aan keenay ayay telefoon waxay kula hadlaysaa ayuu yiri qof rag ah way murmaayaan marka waxay leedahay way ugu dayacday saana yeeshay ina guri geesti ma rabtid kan waaye maanta kadib laakiin ku raaxayso dib dambe aan kuma jiro ilmiina iska soo xaaqay ilaan caruurta oo soo xaaq aabay leed oo maba ahayn cunug meher la'aan dhashay markaas ayaa xoogaa waxaan isoo yiri Allah cunug aadish aabo laha maba ogaba xataa kuwa aabaha aan lahayn dilkooda inay dambi tahay shaqa caadi ka dhigtay 20kiisa 30kiisa wuxuu helo iska qaadan jiray cirbada dur midaan kiniiniyarsi gabadhan maxaa la yiraahdaa seexiye ya xaj iska watay ugu dambeyntii marka uu xanuunsaday waa yeel waa duqoobay caruurtiisa ayaa kaxeeyeen waxa la geeyay Mareykanka